السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوض ميل والبو aad naga daawanayso kusoo dhawaad xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid qaybteedii 7. qaybtii 6 waxay inoo joogtay markaas ay ilmo isa soo buuxisay indhihiisa oo hadalba ka soo bixi waayay. qaybta 7 waxay inoogu bilaabmi doontaa sida tan. ninkiiba intuu madax u salaaxay oo raxmad iyo kalgacal u muujiyay ku yiri maxaa kuugu dhacay adeer. saxardiid intay ilmadii labada dhaman ka dareertay ayuu cod ceejisan ku yiri adeer anigu meel alla meel aan tago garan maayo, qoys iyo qaraabo aan ku hagaagana ma jiraan. ninkiiba hadalkii inankii yaraa ka damqaday dabadeedna ka wareystay qisadiisa waxay ahayd markuu xaalkiisii daba iyo dacal ogaadayna intuu qalbigiisii dabcay ayuu yiri adeer haddii aad jeceshahay inaad annaga nala joogto nala joog, hase yeeshee waxaan kula dardaarmayaa in aanad qof wax weydiin, wax alla wixii loogu yiraana ku dhaqaaqdo oo aanad hadal ka soo celin. saxardiid baa ku jawaabay ilaahay idinkii waxaa noqon doonaa kaaliya habboon oo aamin ah. saxardiid baa gurigii cidlada ah keligiis iskaga noolaaday. qol yar oo guriga xaggiisa dambe ku yaala ayaana ninkii siiyey. qolkiisuu dabadeed habeenkii seexdaa, maalintiina marka aanu wax hole qabanaynin ku nastaa. inta badan howsha loo dir waabay yareed. ninkii dheera ayuunbaana wax u diran jiray, markaasina waxay ahayd howl fudud oo aana waqti badan qaadan. guriga intiisa kalena waxba kuma soo ogeyn, hase yeeshee wuxuu ogaaday in ninka dheer iyo walaalkii ma ahne qof kale ku nooleen meesha. sababta oo ah marka uu habeenkii daaqadaha qolalka kale oo eego wuxuu arki jiray 3 har oo dhaqaaqaysa bis. ninka dheer marka uu muddo joogaba marbuu socdaali jiray, kadib markuu dhowr maalmood soo maqnaado wuxuu soo noqon jiray isaga oo wax la cuno iyo wax la cabo iyo dhar sida. waxaana uu la ekay saxardiid nin sida maalqabeenka u nool oo haba yaraatee faakihaysi iyo baraar aan waxba uga dhinneen. halkiiba bilaba bil daba martay oo xagaagii dhammaaday, jiilaalkii baana ku xigay, haddana gu'ii baa ka daba yimid ilaa xagaagii oo soo wareegay oo sanadkii dhammaad ku dhowaaday. haddaba habeenadii xagaaga ka mid ah oo dayaxu soo jeedo ayuunbuu ninkii dheeraa u yimid saxardiid, dabadeedna ku yidhi maxaad ka qabtaa adeer haddaynu caawa tamasho yar u baxno habeenkaana caddada ah ee quruxda badan. sidiibuu oggolaaday inankii saxardiid. markaasay bannaankii cidlada ah u baxeen iyaga oo labadooda keliya ah, dayaxuna kor ka ifinaya, hareerahoodana isku ballaariya bacaadka isdaba yaal, dabayshuna dhagooda ka fooriyeyso. waxay socdaalkii tamashlada ah ku jiraanba waxay maqleen guuxii badda. markaasay xaggii xeeligii aadeen ilaa ay soo gaaraan oo ay arkaan dhagaxii weynaa oo yaalay. dabadeedna dhagaxii ayay iska fariisteen iyaga oo ku nasanaya. waqtiga badda way kacsaneed, waxayna lahayd hirar isdharbaaxaya oo la mooday inay dirarayaan. hase yeeshee guuxa badweynta ka soo yeeraya iyo neecawda saxansaxada leh ee ka soo kacaysaba marka lagu daro dayaxa 15 ah ee iftiinkiisa arlaada wada dhameeyey, waxay qofka ku dhalinaysaa xasilooni iyo nasasho. aragtida guud iyo astaanta oo habeenka adduunku lahaa waxay saxardiid xasuusisay habeenba habeen ka tilmaam leh. habeenkii ninkii soo gali u dambeysay, habeenkaas oo sanad ka soo wareegay, marka isaga iyo soo gali dhagaxan ku wada fadhiyeen. soo gali ninkii wanaagsanaa ee mawjada raacay isaga iyo arrimihiisii la yaabka lahaa. habeenkaa dabadeedna sheeko iyo shaahiid wax sheegaya aan lana arag lana maqal. saxardiid iyo ninkii ayaa cabaar halkii wada fadhiyey isaga oo mid walba geestiisa iskula maqan yahay. xoogaa markii aamuskii ku yara dheeraaday ayuu ninkii isaga oo cod murugaysan ku hadlaaya ku yidhi saxardiid wiilyahow yari, caawa habeenkii xagaaga kala baraayay waana habeen. intaasi waxay noogu dhammaaday qaybtii 7 ee sheekadii saxardiid.